You go. Bismillah. I'm just off my side leg. Bismillah. Assalamu alaikum everyone. Saakilina sameynayna aniga saaxiibkay 10 kilomitir sameynayna hadda waxaan sameynay ilaa iyo 3 kilomitir camal sameynay 7 kilomitir aan noo dhiman lacagta soo baxda waxaa loo aruurinayaa baaritaan xaaladda loo yaqaano autism-ka baaritaankan waxaa sameynayo hay-ad lacagta dadka donationka ay sameeyaan sponsorka ay sameeyaan directa ayaga u tegaysaa marka linkiga hoos aan kusoo tuuraa hoos linkiga taabo waxaa awoodda u tuur waa project aad muhiim u ah midda ugu muhiimsan waxa waaye in dadka ay ogaadaan autism inayna cudur ahayn oo ay tahay xaalad waxyaabihii igu yaabka badnaa waxay gabar ay soo wacday waxay ii sheegtay cunug yaray dhashay 5 sano jiray inay isbitaal kasta geysay lacag badan looga qaatay lacag aad u fara badan looga qaatay daawooyin tira badan la soo siiyey loo sheegay inuu cunugeeda autism qabo daawana uu u baahan yahay daawadaas hadduu qaatana inuu ka fiicnaanayo warkaas been waaye kow autism cudur maaha daawo looma qaato raalli hada saakilna ku jira daawo looma qaato cunugaaga mar haddii autism lagu sheegana waxa waaye weligiis autism ayuu ahaanaya laakiin cunugaaga waxaa la bari karaa xirfadaha nolosha mar hadduu xirfadaha nolosha lagu maareeyo uu barto sidii dadka caadiga ah oo kaleeto u noolaana wal waxaa laga yaabaa inuu cunugaaga ka sii khatarsanaado dadka caadiga ah sababtoo ah maskax cajiib ah ayay leeyihiin waxa waaye siday maskaxdooda u shaqayso way ka duwan tahay ee wax processka u samayso marka waxbayaan lagu sheegin in mataqaanaa autism daawo uu leeyahay lacag iyaysa kaaga dhammaanin qur-aan haddaad rabto inaad saarto cunugaaga qur-aan saaro waa wax fiican qur-aankana waa daawo laakiin daawooyaan lagaaga qaadan lacag